madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in militariga dalkiisa ay cirka iyo dhulka uga weerari doonaan meel kasta oo ay ku sugan yihiin ciidamada Syria haddii askari kale oo Turkish ah ay waxyeeleeyaan. Erdogan ayaa sheegay in Turkiga ay ka go'an tahay in ciidamada dawladda Suuriya ay ka durjiyaan goobaha kormeerka ee gobolka waqooyi bari ee Idlib ka hor dhamaadka bishan Febraayo. Waxa uu uga digay ciidamada mucaaradka ee Syria ee xulafada la dalkiisa in aysan siin ciidamada dawladda Syria cudurdaar ay ku soo weeraraan. Rabshado ayaa ka socda gobolka Idlib oo ku teedsan xukuumadda koonfureed ee Turkiga toddobaadyadii tagay iyada iyo ciidamada dawladda oo ay taageerayaan Ruushka iyo Iiraan ay qabsadeen dhul badan. Turkiga oo xulafo la ah qaar ka mid ah mucaaradka ka soo horjeeda dawladda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa talaadadii qaaday weerar jawaab ah kadib markii ciidamada Syria ay duqeymo ka sameeyeen gobolka Idlib ayna ku dileen 13 askari oo Turkish ah 10kii maalmood ee tagay. Haddii dhaawaca ugu yar la gaarsiiyo ciidamadeena waxaan halkan uga dhawaaqayaa inaan ciidamada Syria ku beegsan doono meel kasto ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Xiisadda Idlib ayaa sidoo kale tana dhaawacday xiriirka Ankara iyo Moscow. Wakaaladda wararka ee TSS ee Syria ayaa maanta sheegtay in Erdogan iyo Putin ay ku wada hadleen teleefanka gacanta iskuna raaceen in ay sii wadaan xiriirka Syria.